ujeedada howlaha nadaafadeed ee maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo ka bilaabay xaafadaha kala duwan ee degmada Xamarweyne ayaa waxa ay tahay sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen bulshada ku nool degmada Xamarweyne soo celinta bilicda iyo nadaafada degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaana howlaha nadaafadeed ka qayb qaadanayay maamulka degmada Xamarweyne qaar kamid ah bulshada ku nool degmada Xamarweyne gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Umar Shariif Jeeg ayaa ka warbixiyay howlaha nadaafadeed ee ka socda degmada Xamarweyne wuxuuna u soo jeediyay bulshada ku nool degmada Xamarweyne inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Xamarweyne maanta oo aan qaadnay olole nadaafadeed waxaan muddo 4 saacadood aan ku qabanay qashinka tirada badnaa ee degmada Xamarweyne yaalay ayadoo iska kaashanay maamulka gobolka Banaadir oo gaadiidkii oo kombalet ay soo direen shacabka degmada Xamarweyne waxay diyaar u yihiin mar kastaba inay ka shaqeeyaan degmadooda ciladihii jireen oo dhan meesha ka baxeen waxay maanta maamulka degmada Xamarweyne diyaar u tahay control ku sameynayna isgoosyada luuqyada meel kastaba qashin dambe cid aan ku haleynayna ma jirto qashinkana insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo 24 saac afarta gudoomiye waaxid waxay amaawir ku qabaan in ay waaxdooda aan loogu imaanin hal warqadood shacabka degmada Xamarweyne waxa loo sheegaa nin kasta inuu gurigiisa hoostiisa iska xaaqo ee uu qashinka soo dhigo bacda waxaan diyaar u nahay inaan u adeegno oo aan qashinka ka qaadno maamulka degmada Xamarweyne ayaa muddooyinkanba waday dadaalo ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa horumarka iyo bilic soo celinta degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho